السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله ملول بأجوكتين وأنا سلاميا وولالكين شكور oo maanta inii wado video cusub waxaan idin ka raali gelinayaa muddo sooma soo gelinin maxaa la dhahaa video waan iska mashquulay maanta waxaan rabaa kaliya in aan video soo geliyo oo aan ka hadlayo xaalka suuqa sidoo yahay janiska oo suuqa bixinayo ayaan taani bullbagi uu sameeyay suuqa cryptocurrency-ga kooniyada aan isleenahay lacag fiican waa laga sameyn karaa suuqa hadduu soo noqdo xaaladiisa caadigeeda ku soo noqdo marka waxaan isla fiirinaynaa website-yada ugu waaweyn oo lagu taxliiliyo cryptocurrency sida CoinMarketCap-ka website-kan haddaad aqoonin waxaa la yiraahdaa CoinMarketCap badanaa waxaad ka helaysaa all information ku saabsan cryptocurrency haddii aan ku bilaabo market capka global market capka cryptocurrency maantay hadda aan idinla hadlayo wuxuu marayaa 1 trillion 299 milyan dhibic 191,301 marka waxaan ka imaanay sida ogtihiin haddii aad la socotiin suuqani almost 3 trillion baan joognay dhowr bil ka hor laakiin suuqii xaaladaha awga oo saameeyay sida dagaaladii ka socday Russia iyo Ukraine u dhaxaysay iyo maxaa la dhahaa sicir bararka adduunka taasi waxay keentay in suuqa uu volume lacag badan uu maxaa la dhahaa lumiyo sida ognahanay Bitcoin waa coinka ugu weyn ee cryptocurrency haddii aan isla fiirno Bitcoin wuxuu hadda marayaa 31,533.63 senti maantay aan haddan hadlayo CoinMarketCap-ka maxaa la dhahaa Bitcoin wuxuu marayaa 600 milyan 328,239 doolarka Mareykanka dhowr bil ka hor wuxuu marayay market capka Bitcoin haddaa xasuusatiin 1 trillion buu u dhawaa mase uu gaaray waxaa ka dhinaa u malaynayaa adii 150 milyan haddana wuxuu u khasaaray ilaa 350 milyan buu khasaaray oo suuqa maxaa la dhahaa ka hoos maray laakiin dhinaca kale haddaa fiirisid maantay volume-ka maanta ku jiro oo trade-ka lagu sameynayay waxaa 38 trillion 638 milyan 615,736 doolarka Mareykanka wuxuu sarakac u sameeyay 26.64 boqolkii waa 24 saacadood hadda la soo dhaafay okay haddii chartiga aan fiirino haddii aan sameyno a week waxaan sameynaynaa 3 month 1 year chartiga waxaan ka fiirinaynaa raali ahaada chartiga haddaan isla aragno chartiga wuxuuna tusayaa 8 week mise 9 week hadda la soo dhaafay haddii aan tiri waa 1 wuxuu ka soo bilowday
21 March baan ugu dambeysay week cagaar ah wiigagii ku xigay waa 1 waa 2 waa 3 waa 4 waa 5 waa 6 waa 7 waa 8 waa 9 week oo isku xiga buu wuxuu ku socday down trade waxa ku socday sell off waxa la dhaho because week hadii la xisaabo wuxuu ahaa week oo maxaa la dhahaa sell lagu sameynay inta badan waxa ku xoog badnaa suuqa dadka sell gareynayay waxayna ka xoog badnaayeen dadkii wax baa gareynayeen haddii loo xisaabo average-ka week-ga loo xisaabo waxaad arkaysaa maalin haddii aad samaysid day waxaad arkaysaa maalmo oo green ahaa aad arkaysaa ku dhex jiro maxaa la dhahaa weegyadii hadda aan tirinaynay maalmo oo green ah laakiin wixii haddii la isku xisaabo how many weekgaasi dhan haddii yani average ahaan loo xisaabo waxaa badan dadkii sell off ku sameynaya cryptocurrency marka weekgaan usoo noqono hadda weekgani isniintii shalay ahayd wuxuu ku bilowday suuq aad u qurux badan wuxuu ku bilowday ii sheeg maxaa la dhahaa buy oo ku bilowday greenkii oo muddo ugu dambeysay weli ma qiimeyn karno weekga because week hadduu bilowday laakiin wuxuu ku bilowday movement aad u xoog badan oo maxaa la dhahaa buy marka waxaa u malaysaa suuqii inuu u soo noqday halaho dhiig cusub in lagu soo shubay mise lacag ee soo gashay laakiin still waxaa la dhihi karaa lama qiyaasi karo because week hadduu bilowday marka weekgani ma noqon doona weekgii 10aad oo uu ku xirmo suuqa maxaa la dhahaa bitcoin BTC ma noqon doonaa weekgii 10aad lama oga because hadduu bilowday waxaanoo dhiman ilaa 4 ilaa 5 beri meelahaas marka taasi waa BTC okay BTC xalkeeda meeshaasuu marayaa haddii aan u fiirino coinka kale sida Ethereum wuxuu maraya weekgii hadda lasoo dhaafay ku dhawaad 1,750 meelahaas uu gaaray hadda wuu soo noqday laakiin waxaa ka faa'iiday soo noqoshada shalay maxaa la dhahaa bitcoin waxaa ka faa'iiday coinankan kale sida Cardano waxaad aragtaan sarakac uu sameeyey 24.24 boqolkii 7 days haddaad aragtid 24 hours meeshan wuxuu ku tusaa 24 hours tanna waa 7 days okay marka Cardano waxaad u malaysaa lacag fiican inuu ka sameeyey soo noqoshadii ee soo noqotay BTC chartiga haddaan fiirino chartiga Cardano haddaan fiirino 7 days wuxuu marayay 30 bisha wuxuu marayay Cardano eber dhibic 47 senti uu marayay Cardano haddana waa aragtaa meeshuu marayo eber dhibic 60 iyo wuxuu gaaray eber dhibic 67 senti waxaa ku darsantay ilaa adi 20 senti marka 20 senti ciyaar ma haddii aad 20 senti aad ku dhufatid inta coin ay haysatid waxaa waay lacag fiican ay ku noqonaysaa marka see loo xisaabaa asxaabta badana waxay dhahaan waa ku wareerna baashan see u xisaabanaa bal waxaan xisaabaynaa tusaale ahaan $1,000 aad waxaa gelisay BTC markuu marayay Cardano markuu marayay
هاوي باشي minus plus me calculator كان ربا بالسوقة اوكي calculator كواكنا كان ايجا ترتر $1 waxaad u qaybinaysaa BTC meeshuu marayay wuxuu maraa BTC sidaan sheegnay eber dhibic 47 senti samaha eber dhibic 47 senti marayay waxaad markaad agadatid waxaad helaysaa 2,000 coin 2,000 يا 2,000 وكون هدا جلست بيت محل دا كردانو مركو صدق بشه مركي احد مركو مراي قيمة هاسي كون هدا جلست واحد هيليسا كوين او دقمتو كردانو 2,000 اوكي waxaa ku ziyaaday haddaan dhahno 2,127 ziyaadadii oo ku ziyaaday hadda waxaa maraya Cardano sidaa aragteen 67 senti marka waxa waa 20 senti aa ziyaade marka waxaa ku dhufanaysaa 20 senti waxaa ku dhufanaysaa coinkan aad haysatid markaasaa faa'iidadaada arkaysaa eber dhibic 20 سنتي يقينا نقطة صدق بشا قفكي قتي كردانو أو كو قتي مركي مريسي إبر ربع تضواتني أفرتني 7 سنتي أو $1 قليي حتى ما أنت فائدة وحوها هي مالين كدب فائدة وحوها هي أفر بقول لا $25 $425 marka saas u xisaabsanaysaa mar walbo coinka meeshuu maraayo iyo lacagta aad gelisay u qaybinaysaa waxa kuu soo baxaya coinka cadadka coinkii aad helaysid cadadka coinka aad heshay waxa ku dhufanaysaa inta coinka markuu sare kac sameeyo inta coin aad maxalada inta price-kaas waxa aad ku dhufanaysaa inta coin aad haysatid marka waxay ku noqonaysaa lacagtii faa'iidada marka iska gadatid waxay ku noqonaysaa 1,425 saasay ku noqonaysaa lacagtaada haddaa iska gatid faa'iido markaas waxay haysataa baashaad haddaa iska haysatidna oo dhahdeed waan sugaya waxaa laga yaabaa in lacag kugu darsanto waxaa laga yaabaa suuq inuu kugu soo noqdo oo maxaa la dhahaa aad aadid minus aad inta imaatid 900 faa'iidadaadii meesha ka baxdo marka mar walbo waxaa fiican in faa'iidada la qaato mar walbo waxaa fiican faa'iidada in la qaato okay intaasi waxaan aan ku daynayaa videogan yar insha Allah isha ku haya suuqa jaanis badan baa ka jiro markay cabsi markay jirto suuqa waxa waayay faa'iidadiisu way badan tahay marka waan salaamay insha Allah website-kan mar walba ku xirno coin market cap wuxuu leeyahay application aad ku soo degsan kartid maxaa la dhahaa telefoonka midkan kalena waxaa la dhahaa coin cargo asagana waa isku midkii aad rabtid aad isticmaali kartaa marka waan salaamayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.